السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام انتي صاحبي اللمانتين من كستوت جوبتان سو دوادا maanta waxaan baranaynaa question tags waxa loo yaqaan question tagska ama su'aal aad ku hubsanayso qofka aad hadalka ku tiri inuu kugu raacay iyo in kale qeextan ahaan wuxuu leeyahay a question tag a tag question is a short question waa su'aal gaaban example tusaale waxa leedahay have you oo kale ayaa leedahay ama waxa leedahay haven't you ayaa leedahay that flows taas oo raacayso a statement hadal ayay raacaysaa tusaale wuxuu leeyahay you have got a car gaari ayaa heshay oo didmootan you haven't got a car gaari ma aadan helin have you miyaad heshay it is a good film wuxuuna ahaa film wanaagsan wasn't it miyuusan ahayn halka kale wuxuu leeyahay normally wuxuu leeyahay si caadi ah we use a positive question tag ayanu isticmaalnaa with a negative sentence haddii jumlada ay tahay negative and question tag waxaan ka dhignaa positive aan ka dhignaa si lamida sidaasi haddii jumlada ay positive tahay question tag ayaa wuxuu noqonayaa negative a negative sentence tusaale wuxuu leeyahay Tom and want to be late Tom soo daahi doono wantadan waxa laga wadaa and will iyo not oo isku daray will he soo daahi doonaa haddii meeshan will be late ahaan lahayd halka waxay noqon lahayd want he they don't like us nama jecla ayaga do they mana jecel yihiin that isn't a church over there kaas oo halka jooga miyaanan ahayn church and is it miyuu yahay dabcan church qof ma aha markuu it uu qaato xayawaan ama waxyaabo lamid ah ayuu la micno noqonayaa and normally we use waxaan isticmaalaynaa ama u isticmaalaynaa a negative question tag with waxaan u isticmaalaynaa positive sentence aan isticmaalaynaa on will be here soon aan halkan ayuu imaan doona want he or want she miyaanan imaan doonin Tom should pass his exam Tom waa inuu ku baasa imtixaankiisa shouldn't he they were very angry and aad iyo aad ayay u xanaaqsanaayeen weren't they miyaanan xanaaqsanayn ayaan leenahay halka waxaan leenahay how do we form question tags sideen u sameynay question tagska auxiliaries and ficil kaabayaasha like sida be have can may must should etc used ayaa loo isticmaalaa in the statement reported at the end followed by the subject always pronounced waxaa loo isticmaalaa auxiliary verbs kana loo isticmaalaa hadalka ka oo la soo warinayo dhamaadka jumlada ama dhamaadka waxa ka raacayo meesha oo aad ku sameynayso question tagga waxaad ku sameynaysaa subjectiga iyo auxiliary verbki ay isku daraysaa haddii gudaha not ku jirto nada uma sameynaysid haddaysan statement ama sentence aysan not ku jirin not qaybtana ku daraysaa for example meeshan waxa uu leeyahay John was annoyed John waa laga xanaajiyay wasn't he miyana laga xanaajin auxiliary verbka waxa waaye he wasn't annoyed laga xanaajin was he marka hadda nodan waxa waaye gudahan ama statementgan oo annoyed ku eg ma laha wax negative ah sida darteed tag ayaa negative ku dhigayna laakiin tan negative ka gudaha ayuu ku jira tag negative ma ka dhigayno sidoo kale wuxuu leeyahay and I'm late waan soo dahay aren't I miyana soo dahan wax kale xasuus mudan waa marka uu kaliya ay loo ogolahay inay ar qaato waa markii la joogo question tagga because aren't I lama ogola question taggana waxaanan abbreviation ahayn lama ogola soo gaabin aan ahayn okay so waxaan leeyahay this is so important aad iyo aad ayay muhiim u tahay aan sii wado waayahay page ku xigaan u gudbaya so let's do it control L let's use plus okay page ku xiga waxaan leenahay with all other verbs sorry okay wait me page kalaan soo dhacay sorry wuxuu leeyahay markaani with all other verbs ficilada oo kale ama tag questionska formed waa la sameeyaa with do ama don't ayaa la sameeyaa ama doesn't
present simple markii la joogo ama simple present saa u taqaano. Kan kalena waxaa waaye did ama didana la sameeyaa simple past markii la joogo ama past simple markii la joogo. tusaale waxaa ka mid ah marka you like fish kalluun aad jeceshahay don't you miyaadan jeclayn. They don't like fish kalluun ma jecla do they ma jecel yihiin. He likes fish kalluun uu jecel yahay doesn't he miyuusan jeclayn. She liked fish kalluun ayay jeclaatay didn't she miyaanan jeclaan. This also applies to have and do as main verbs. And main verbka haddii macnaha sometimes oo gudaha uu ku noqdo have iyo has uu noqdo dabcan ma u isticmaalisid oo verb to be hadduu yahay sometimes have uu qaadanaya sometimes waan u isticmaalaysaa. You have a tea at 4 o'clock didn't you leedahay I haven't you waa dhihi kartaa. You did your homework didn't you leedahay. waayahay that questions are also possible with there ayaan gelinaynaa. So there will be a strike want there ayaan leenahay. waxaa jiri doonta markaasi garaaco ayaa jiri doona ama duqeyna dhici doonto want there aan leenahay. halkan ayaan kusoo koobayaa intan kale waa exercise intaan kulmi doono xiisadaan xiisad lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.